kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii caalamka ugu hadalahaynta badnaa iyo warbixinihii diblomaasiyadda xasaradaha ka taagan gacanka Carabeed sidee looga falceliyaa daawadayaal waxaynu ognahay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka George Bush inuu ka warwareegay in Iran uu weeraro sidoo kale madaxweynihii ka dambeeyay ee Barack Obama ayaa isaguna ka leexleexday inuu Iran weeraro haddaba waxay hadda u muuqataa Donald Trump ka madaxweynaha Mareykanka inuu hadda uu cududaar u raadinayo inuu Iran weeraro xasaradaha ka taagan gacanka Carabeed ayaa sii kordhaya dunidu waxay daawanaysaa walaaca xooggan ee ay ka qabto xasaradaha cirka isku sii shareeraya u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran kadib markii ay dhaceen laba weerar lagu bartilmaameedsaday maraakiib mareysay gacanka Cumaan toddobaadkii la soo dhaafay Baatigoonka Mareykanka ayaa daha ka qaaday sawirro cusub oo muujinaya dhacdadaas waxaana ay ku doodayaan inaysan marnaba ka labalabeynayn inay hayaan cadeymo ah in Iran ay ka dambeysay weeraradaasi inkastoo Iran ay iyaduna iska fogeysay inay ku lug lahayd eedeymaha loo soo jeedinayo iyadoo xaaladda labadan dal ay sii xumaanayso ayuu aqalka cadi ku dhawaaqa inay ciidamo dheeraad ah u dirayaan bariga dhexe haddaba dawladaha caalamku sidee ayay uga falceladiyeen xasaradaha cirka isku sii shareeraya ee labada wadan falcelinta Mareykanka ayaanu ku hormaranaa madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegaya inuu weerarkan uu aaminsan yahay labada markab lagu qaaday in Iran ay ka dambeysay isagoo cuskanaya cadeymaha sirdoonka Mareykanka sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu caan ku yahay in aanu qaadan wararka sirdoonka ee Mareykanka haddii aanu isagu ku qanacsanayn ama waxa uu doonayo aanay ku saabsanayn wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa arrimahan ku tilmaamay inay yihiin kuwa aan cadeymo dhab ah loo haynin isla markaana Mareykanka kula talinaya inaanu ku degdegin riboodyada halka ka imaanaya waad mahadsantiin daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warbixinaheennii diblomaasiyadda ee maanta wixii ku soo kordha waanu idinla socodsiin doonaa haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar sina share garee mahadsanidin and to reestablish deterrence is a